ololaha doorashada madaxtinimada dalka Djibouti oo galay wajigii labaad ayaa dadweynaha ku dhaqan gobolka Cali Sabiix tirsan dalka Djibouti waxay maanta qabteen isku soo bax ballaaran oo lagu taageerayo xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee dalka Djibouti UNP dhammaan shacbi weynahan oo si weyn maalmihii ugu dambeeyay ugu diyaar garoobayay dhoolatuska iyo dabaaldega xuduudda taageere ee ay u hayaan xisbiga UNP madal ilyartiisa soo buux dhaafisay oo si aad ah loo soo agaasimay ayaa waxa si weyn uga dhex muuqday calanka astaanta qaranka jamhuuriyadda Djibouti astaanta xisbiga aqlabiyadda ee dalka Djibouti iyo sawirka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele isku soo baxan ballaaran waxa maanta dadweynaha kala soo qayb galay wafdi ballaaran oo hogaaminayo musharaxa madaxweyne ee xisbiga UNP madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele marwada qaranka Djibouti Khadra Maxamuud Xayd mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga UNP mas'uuliyiinta gobolka iyo ka xisbiga UNP ee gobolka Cali Sabiix musharax madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa markii uu goobta soo gaaray waxa lagu soo dhaweeyay sacabka sawaxanka ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo suugaan loogu tala galay madaxweyne Geele haldoorka iyo mas'uuliyiinta xisbiga UNP oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay bulshada reer Cali Sabiix ugu baaqeen in laga wada qayb qaato dhiirigelinta iyo taageerida loo hayo musharax madaxweyne Geele waxayna dadweynaha ku dardaarmeen in 8 Maarso codkooda ay siiyaan madaxweyne Geele dhammaanteen annagoo isku duuban boqolkiiba boqol annagoo haddaan reer Cali Sabiix nahay yaan diyaar u nahay hawsha umaan kala hadhin ilaa dharaartii kambaanigu bilaabmay ilaa maanta isdaba joog yaan ugu jirnaa si qurux badan bay arrimaha ugu socdaan dalka ka baxaan baxday كمظاهراتي يوقف الواقعية اسماعيل نوجو يوقف الواقعية من تولدي إلى مغلوبي وينعين طبعا كلمة كلية لغو الواقعية اسماعيل نوجو قال اليوم وقتا حكى اليوم وضمانتا وإلى المعين تجمعها ديال الله ورقدها تكون الشوارع EOJ marka walaalayaal horta guushan iyo shaki kuma joogto hadduu ilaahay yidhaahdo marka shaki maxay ku jirin barakada ilaahay baa nala socota maanta musharax madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu dadweynaha kula dardaarmay hadal kala duwan inaan hawsheena sii wadano horumarka dalka sii wadno aan faqriga dadka ka saarno aan isdiraano waxa aan qarsanaynaa 5 sanadood waxa weeye halka ma gaarina dhammaanteen ballankeennina waa halkii bisha 8 idinkaa laydin sugay jawaabtiina la sugay yaa sugaynaa عسجوج يبني جوج هذا مسكين رئيسي بني كهذا بنا استقامين يقدروا في عملية وأقول سرنا هدي الله ينادو ليش السيد لنا بلنكينا وأنا
وانا نسمع علينا. والسلام عليكم ورحمة الله. qaar ka mid a dadweynihii ka soo qayb galay oon dareenkooda wax ka weydiinay ayaa iyaguna waxay halkaasi ka caddeeyeen. waxaa la yiraahdaa Deeqa Ciise Muuse waxaana ka socdaa gobolka Jabuuti waxaana u yimid meetiinka Cali Sabiix sidaan u taageero musharaxiina mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana codsanaynaa inaan 200% loogu rido. أنا مقعد جزاري إبراهيم حسين لا يرادو أون كي من مقالة جيبوتي أو ما أنت شعيل إسماعيل أنا صباحنا مر والبناء جوجنا مدحوينينا أنا ودي سنين ونص نقضى ونغير لي أنا لنا مدحويني نو شوك هذه ما هي نكلا أو ما أركني أنا لنا هاي أنا مدحويني جر أو شوك ما أنت مر أفراد نو هين ما أنت محل هذا هرا مركب ودك هنا عادي موين عيد كنا نعركين والله آدي بمناسبة وفي عن تاعي أنا رايح على سبيحة أو جيبوتي كيمدي وحويجي رايح على سبيحة قبي ويدينهين ويسرد جوجان وضي إسلام إنما هبلو وود جوجنا وأنا دبل جوجنا مدحوينه الناس مع العمر قلي يقدر يكتب كامبانيا على سبيح مدن حسن يدرس السمرية وحقبتك هدان تابتو مشرح UMP وتاجن دورشة مدحتني ولا أركيا ويسكوذا موقتها حاجة وحبرشة حاجة دلنتا حاجة عافماتك قيبل بعدين كتابته وحلا قبتي وين موقتها ماشي كني مننا ولا أركيا هل كان كوسو عننا ولا أركيا برنامج كنوت نو مشرح وصور دقي مانتنا وقرية هي مركا ومدر يجيبوتي وحنا نقول إنه دورتان هرو مركا إنه دورتان dadaalka uu ku jira madaxweynaha musharaxa Ismaaciil Cumar Geele isku soo wada duub oo isku soo baxan ballaaran ee ay dadweynaha gobolka maanta iskugu soo banaan baxeen ayaa waxay ugu quusgooyeen xisbiyada mucaaradka ee la tartamaya xisbiga aqlabiyadda ee UMP Axmed Diriye Ciltire warbaahinta SBC gobolka Cali Sabiix ee dalka Jabuuti.